degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle oo ah degmo qadiimi ah isla mar ahaantaana caqabado badan kala kulantay biyaha webiga Shabeelle xilliyada roobka ayaa waxay qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhalinyarada degmada Mustaxiil ay cabasho ka muujiyeen baahiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ballaarinta xarunta caafimaadka ee degmada jidka halbowlaha ee isku xidha degmada Mustaxiil iyo Qalaafe shacabka ayaa sidoo kale sheegay in dhanka wax soo saarka ee degmadu hodanka ku ahayd ay curyaamisay fatahaada webiga Shabeelle oo xilli roobaad walba saameyn ba'an ku keena masiibadan ilaahay keenay oo biyo baxada waa mid hadda nahayso taana hadda ilaahay baa keenay oo ilaahay baan ku xamdinaynaa wuxuu ilaahay keenay waa in lagu xamdiyo maadaama islaananahay waxa alla wixii zarac ahaay oo ummadda ay filinaysay waatan indhihiinna ku aragteen oo diyaaradda ku kormarteen wax loo baxsanaya ma laha taas waa masiibo ilaahay xaggiisa ka timid midda kale oo magaalada dhibaatadeeda ma yaro magaalada yaraan ilaa 8,000 oo qoys waa degantahay biyihii waa cariiri cabitaankoodii waayo gaari kareetaa tiraahdiin adinka kareeto salaadii la raray 5 saac 6 saac ay cid u imaanaysaa waa saf waa biyo la'aan midda kale waxaa waaye isbitaalka 13 qabale ayaa qoran oo degmada ay xukuntaa 13kaas qabale kuma filno si runtaas aan filayni uma aanan helin dowladda inay ka fikirto waa u baahannahay inay loo ballaariyo waxay labeeyo wadda hadda ayada warkeed maba jiraba waddo isma hayna hadda waayo haweenka naagtay umusho ama dhaxday ku dhimani ama dhaxday ku dhali ay ku rafaadi goday nooma dhowo 185 kilomitir inoo jirtaa intaasna wadda male waranka waxyaalaha noogu daray intaas weeye oo aan weligeed ba naga kacaynin tan waa masiibo ilaahay baa naga qaadayo waa la arki jiray wax dhintay haddana waa tabcanaynaa haddii ilaahay nafta nugu celiyo laakiin midda nala abtirsata waa middaas baahiyaha kulliyadda antivino waxa ku ka wadada kala hooyada rifraaqo kala markii la qaadayo waxaa laga yaabaa in habeen dhax u sii gaartaba ilaa iyo hospitaalki iyadoo ay wadooyinka inkastoo hadda idinka diyaarada ku maateen iyadoo wadada iyo hadda Mustaxiil 108 kilomitir oo jirta gudi hospitaalka hooyada rifraaqo xaggan aan ka dirna waxaa laga yaabaa in habeen dhax u sii gaartaba ama dhaxda ay wax ku noqoto xaalad kale ay ku gasho xaalad inta laga qaaday xaalad kale xagga ka gasho waxa baahiyaha kala daan u baahanaa waxa kamid ah leerka kale wax leer hadda 24 hours oo kale leer ma hayno marka hadda anaga baahida ugu weyn hadda antivin kulli waa wadada baahida kale antivin waxa weeye wax talag hadda Mustaxiil ay ku tashan karto oo ilaahay abuurtay ku tashanaysa ma jirto sababtoo ah dalga meesha lagu beera waxa weeye waa shugi shalballa ama ku soo bax ama inuu ku soo bix sababtoo ah biyi fatahaad loo madashan kara xaga xil walba haduu noqdo in biyaha duu kan webiga watiga sababta dhibaatada keentay waxa weeye webiga ma ku salaasnaan webiga gurguriyo sida dadka nagu horeeyay noo sheegeen qarnigii webiga marbuu gurabal marbuu rarma qarnigii waxa weeye hadda waxaan ku jirnaa qarnigii baan taaganahay biyo gurguriya kolba dhinac u rarmaya marka waxa weeye hadda dhibaatooyin aad u badan baa ka jirta bulshadii baahiyo fara badan baa jirta indhiina macallimiina waad arkaysaan dhibaatooyin badan baa ka jirta magaalada insha Allah baahiyaha degmada horta inta badan bulshadu waa isku aragti waa isku fikir waa isku mowqif dhibkan hal meel uu ka wada hayaa dhibaatada hadda nooga badan ama kan nooga soo gurmaday ee diyaaradaha nooga soo kiciyay ay mas'uuliyiinta nooga timid waa biyaha fatahaada jid bay lahaayeen webi wuu gooy markii uu soo gaaro webiga xadka Mustaxiil ee Qalaafe meesha Ibraadoon la leeyahay ayuu webiga ku baabay inta webiga xaf bay ku soconayaan marka wadamo haystaan dhulkooda wuu siinmay fatahaad aad u adag iyo dhibaatooyin aad u fara badan ay sameynayaan marka dawladdanada waxaan ka codsanaynaa shalay waxaan degan Mustaxiil maxay meel dhib badan meel marba laga barakaco meel marba lagu rafaado ayada noo sahmisay meelna sahlaan lama dego meesha aan deganahay idaan keentay gurmad badan bay noo sameysay dadkii taageersanaa ee inta badan haddana u subcinaya odayaashii degmadan ku jira aniga waaga degmadan loo sahminayo Mustaxiil dhibaatada nagu haysatay ilaah baa ogaa kadib waan soo baxnay intaan nimid dadaal badan iyo gacan badan iyo hadba wixii naga soo gaaraba dawladda nama moogeen haddana iyada waxaan ka codsanaynaa webiga laagta ee naga laaxday in horta fadhigiisii lagu soo celiyo haddii intay karto xukuumadda intay karto inay nagu soo celiso